waa maxay dhiigkarku? Maxaa keena dhiigkarka? Sidee loola tacaalaa dhiigkarka? Cuntooyinkee u xun ama u roon dhiigkarka? dhiigkarka oo afka qalaad lagu yiraahdo hypertension ama high blood pressure waa xawaaraha cadaadiska dhiiggu ku dhex socda xididada oo kordha xaalado badan awgood. inkastoo aanay weli culimada saynisku si dhab ah u xaqiijin waxa sababa ama keena dhiigkarka, haddana waxay sheegeen in xaaladahan soo socda ay door muhiim ah ka qaataan kororka cadaadiska dhiigga ama dhiigkarka. xaaladahan waxaa ka mid ah qiijinta ama cabista sigaarka, miisaanka qofka oo kordha, jimicsi la'aan, werwer ama walaac qofka ku furan oo daba dheeraada, xanuunada ku dhaca keliyaha. habka ugu habboon ee loola tacaalo dhiigkarku waa qodobadan soo socda oo la sameeyo: jimicsi joogto ah oo la sameeyo, miisaanka oo la dhimo maxaa yeelay markasta oo miisaanku kordho dhiigkarkuna waa uu kordhaa, cunnada milixda leh oo laga fogaado, dufanka iyo cunnooyinka subaggu ku badan yahay oo la iska joojiyo, werwerka ama walaaca oo la iska ilaaliyo, cadhada oo uu qofku iska daayo ama iska kaantaroolo. cuntooyinka u xun ama kordhiya dhiigkarku waa cunnada milixda leh ama cunnada dufanku ku badan yahay. cuntooyinka ama khudaarta u roon dhiigkarka waxaa ka mid ah ama ugu muhiimsan khudaarta cagaaran badankooda sida salaatada ama saladhka, kaabashka, xabxabka iyo liin macaanta. waxaa kaloo u roon saytuunka, muuska, cinabka, malabka iyo toonta. habka keliya ee lagula tacaalo ama la isaga daaweeyo dhiigkarka waxay culimada saynisku inta badan ku sheegaan inuu qofku kaantaroolo ama mar walba istejiyo oo uu cadhada iska ilaaliyo, sidoo kalena waxyaabaha werwerka ama stresska ku keenayana uu iska yareeyo, nasasho badanna uu qaato. inkasta oo ay haddana ku talinayaan in la sameeyo jimicsi joogto ah oo activity-ga ama dhaqdhaqaaqa qofku uu kordhiyo.